daawadayaal barnaamijka wargelin waxaad uga barateen inaanu idiin soo gudbino dhacdooyin warar warbixino aydan hore u arag ama maqasheen laakiin aydan hore u daawan annaga oo aad ugu faraxsan waqtiga qaaliga aadna siiseen ayaanu mar walba waxaan isku daynaa inaanu idiin soo diyaarno waxyaabo ka cusub kuwii hore aad u aragteen laakiin maanta waxaanu idiin haynaa ما جدا ندير كم جرو رجع كسر دعت تفاحة دور نينو سوماليا ماشان قعان وجبت أقرتين دورنا لقو وجبت waxaan u maleynayaa inaad hadda fikrad yar ka haystaan biririfti yareed aad daawateen laakiin aan wax yar idin fasiro magaalada Hastings ee waddanka New Zealand ayaa waxaa ku nool Soomaali ka shaqeysta beeraha Soomaalidana waxay guraan tufaaxa canabka kiwiga qaarkood waxaa loo diraa wadamada Yurub iyo Mareykanka laakiin Soomaalidani dad fara badan kama ay warqabaan baa umaleynaya waxaan tagay magaaladaas mar aan halkaas waddankaas New Zealand documentary ka soo duubay waa la yaabay si uu shaqaysanayeen Soomaali halkaas joogta magaaladani waa magaalo aad u yar inteeda badan magaaladu waa magaalo beer ah haddaba Soomaalida halkaas joogta oo si fiican ii soo dhaweeyay baan wareystay waxaan weydiiyay nolosha ay ku nool yihiin iyo sida ay beeraha u soo guraan nala daawado okay hadda waxaan ku jirnaa magaalada Hastings New Zealand waxay u jirtaa Wellington ilaa 300 iyo xoogaa Soomaali badan halka ma degan laakiin waxa la sheegay inay Soomaalida ka shaqeeyaan beeraha tufaaxa geedkan la dhaho kiwi fruitka iyo waxaas ay soo gooyaan baa leeyahay waxaan la balansanahay inaan la kulno Soomaalida halkaas ka shaqeysa iyagana magaalada nakal tustus doona dadka yimaada New Zealand way soo maraan magaalada maxaa yeelay halkaan baa u badan meelaha ay u soo shaqo doontaan waa xilligii shaqooyinka dhamaadaan magaalooyinkooda ku noqdaan waana beero inta u badan magaalada dadka Soomaalidana yani marka aysan luqad aqoon way fuudaa inay ka shaqeeyaan beeraha maxaa yeelay mu baahnid in hadal ban sameeysan geedkaas baa fuulaysaa inta jaranjartada qaadid baashadaas soo guraysa lacagta lagu shaqeeyo lacagtaas u fiican maahan sida la sheegay laakiin waa ay ka fiican tahay shaqo la'aanta حسن baa la yiraahdaa odayaasha wuxuu kamid yahay Hastings buu kamid yahay صح ragga experience-ga shaqeeyo oo mataqaanaa xilli sinseena qiimaadu kamid yahay صح waxa weeye mataqaanaa especially waxa weeye ragga nabaddoonada nooca oo ka magaciisna waxa la yiraahdaa Xasan baa la yiraahdaa okay Xasan la intee deganeed Hastings adigu ilaa dhowr sano waa deganaa markii ugu horeysa dhankee ka soo Kenya mise Ethiopia ma Ethiopia ka soo gal shaqo ahaanta meeshan sidee kula tahay fiican tahay okay fiican ma ragga waxa tahay tufaaxa mise ragga canab labadaba okay maxaa yani kula dhib badan marka yani aad ka shaqeynaysid beeraha adigu shaqooyinku way iska yar yihiin laakiin wax dhib oo caynkaas oo laga yaabo ma leh waase wax yar oo mar dhifan la helaa marna la waayo صح waasida okay marka guriyaha Soomaalida halkan degan ma hal guri baa wada degantiin mise guriyo kala fog baa degantiin ma guriyaanu kala degdegana meeqa qof baa ku degantiin marka halkii guri wallahi xagga waa laga experience waa gartay laakiin waa isku dhowdihiin waa iska warqabtaan community ahaan hadiyo tooraale community isku xidhan baanuna okay kii xanuunsada kii wax ku yimaada kii kale isbooqashada aad baan ugu fiicanay community aad isugu xidhan baanuna waa gartay waxaa jiray oo maqalnay markii ugu horeysay dadka meeshan degan Mooriga iyo Soomaalidii koow timid in xogaa buuq iyo waxa isku jira xilligaas ma joogtay ma joogina okay waa gartay ma joogina iyadoo dhaqdaan daar baa joogay wax ma noo sheegi kartaa sheekadii hadaad ii sheegtay oo hadda gas station jooga oo saama ahaan lagu la dagaalamay BB-da ku taal meel shil ku taala haritaanka sare meel la yiraahdo oo centerka ayaan waxaan soo galay xilli aan u maleynayo inay ahayd 2003 ayaan soo galay gaar waxay la socotay xijaab qabto oo Soomaaliya macnaha iyadoo la soo marayo gabadhii ayaa waxaan ku dhawaaqay inaan Soomaan mataqaanaa muslim nahay oo ku soo weeraray halkaas iyadoo gacan lagu gaarsiiyo lagu feeray halkaas meeshii gudihii mataqaanaa shock okay marka qofka kula dagaalamay wuxuu ku maleynay inaad tahay Usama
Osama walaalkiis buu ku maamul. He called me for yo Osama. Yeah. Okay, adiguna waxaa tahay ragga tufaaxa iyo kiwiga. ما أنا رجع عنب كان Canabka. Ay. Canabku gaagaaban waa soo arkay. عنب عنب كاس وحليقة ويدية Okay, marka canabku uu soo baxo ana sa soo goysaan marka. صبح مركو وينتر كم وقت وينتر كامارك صح فغللا كبعد والله جرى واحد برولين لقص إلى لقص ما وصبحها مركي وسمر كلا جارو كبعد دور شغال لقى قبتها كبعد والله مشينا غار جرى ضد غار ضد جرى ودور نوع Okay, marka geedka dhan miyaa hoos loo gooyaa markuu dhamaado mise uu soo baxaa دوش kaliya loo دوش كلي عليه جوي nasiib baa leedahay marka dadka ka soo dhac geedaha dhaadheer ما جدا نادر كم جرى رجع كسر دعت تفاحة صح دور نينو سوماليا ماشان قعان وجبته gartay دور إن لقوا وجبته okay ma contract baa lagu siiyaa marka mise كونتراد أورلي هاد بو أسدي أو hourliga markay tahay ma qaataan waa different average $10 $10 marka ay contract tahayna geedka dhan geed contract waa different waa 2 cents 3 cents marihii xabadii ما miraha ma geedka nooca waxay baa laga qabanaya okay ayar baa laga qabanaya marka leenka waxa uu soconaya in yar baa uu soconaya waa 2 cents 3 cents 5 cents 10 cents 50 cents qaara 95 qaara 85 qaara dollar waa different beerahan ay Soomaalida ay ka shaqeyso maxaa ku sababay inay beeraha ka shaqeeyaan shaqooyin kale ma jiraan miya wadan iska yar weeye shaqooyinkuna ma badna marka in macnaha waxa weeye mataqaanaa aan ka helo lacag aan ku sabab qarino dadkii waana shaqo mataqaanaa aan u baahnayn mataqaanaa cilmi dheeraad oo sii dheer marka waxa weeye anagu markasta aan nimaano qof kasto yimaada wuxuu ka fakiraa kama fakaro inuu wax barto kama fakaro inuu wax dhigto wuxuu ka fakaraa in uu sabab gareeyo meesha uu ka yimi iyo dadkiisii geedaha seeba ugu shaqeysaan geedaha seeba loo soo guraa geedaha waxa weeye geedkan waxa la yiraahdaa canab wuxuu ka mid yahay dhirta aan ka shaqeynay ka mid yahay marka oo horeysa dhirta intuu caleen markuu caleen saa u bixiyo miruu soo saaraya caleenta ayaanu ka goynaa laga jaraa caleenta markay miruu soo baxaan caleenta ayaa laga banaynayaa si ay mirihii u helaan qorraxda ugu dhacdo ay qorraxda u helaan waayo hadii kale caleentan wax ka qarinaysaa mirihii qorraxda falaaraha qorraxda ka qarinaysaa kadib waxa weeye mataqaanaayay waa gurnaa markii miruu soo baxaan waa la guraya bikin baa lagu samaynayaa si ay dad kale waxay doonaan ugu sameeyaan juusa ka sameeyeen oo cabitaan ka sameeyeen ama khamriga ka sameeyeen wax kasta ka sameeyeen oo ay deewaan kadib markaan miraha goyno waxaan siligaan ayaanu ku qaadnaa kor u qaadnaa oo ku sii habaynaa laamaha baxay oo sabaxayn oo ka jarnaa kadib waxa weeye mataqaanaayay waxa saasaan ku sameynaa geedahan yaas markii ugu horeysay soo ogaaday qofkii ugu horeeyay Soomaaliya soo ogaaday Hastings inay beer lacag fiican bixisa ama laga shaqeyn karo in jirto saa ka ogaateen waxaan information ka helay dad hore naga soo horeeyay oo wadanka soo galay 20 nin oo waxa joogay mataqaanaayay waxbarasho ku soo galay oo intii dawladda jidhay soo galay wadanka macnaha marka mataqaanaa information ayaan waxaan ku helay in halkaas meeshaas xilliga mataqaanaa qorrax dheeraha oo summer time-ka in miraha laga guro lacag fiican laga sameeyo marka dawladna waxa weeye waxaan soo dirnay teamkii waan soo arkay shaqada ka shaqa bilownay sidaas ayaan ku ogaanay okay labadiinu isku meel ba ka shaqeysaan mise meel kala duwan sometimes marka qaarkood isku meel baan laga yaabaa inaan ka shaqeyno laakiin ninka daahir soo awal boo hore u sheegay warshad buu hadda u wareegay sax ooga yaro waa cuslaaday laakiin geedkan waxa ka shaqeyn kara ragga fudud ama saydo kala dheer صح marka waa geed dheer jaranjar baa la fuulaa baag 20 kiilo ilaa 25 kiilo qoorta lagu xirtaa صح waayo marka aad soo buuxisid waa aad bay u dhib badan tahay inaad marka la soo degayso waa ku dhibaysaa waayo 20 kiilo iyo culeyskaagii oo laga yaabo dadka inuu halkan 80 kiilo 90 kiilo ah صح marka hadda geedkan waa sida ii muuqata geed dheer maaha ma geedad ka waaweyn baa marka geedaha afushaan oo wax ka soo gurtaan aad iyo aad geedkan waa miidhal geedaha yar yar buu ku jiraa ama lacagta ugu yar lagu guro hadda markii miraha la kala daadinayo miraha hoosta yaallo markii la kala daadinayo geedkan oo kale waxa laga yaabaa $2 iyo $3 in miraha laga kala dhimay geedaha waxa jira ilaa $12 $13 lagu kala dhimo okay marka jaranjartaas la fuuliyo
ما safety مثلا أنت مركب فوشان بحرق بواحد كحرتان جيت أو هذا يعني كفتان حتى ستيل وماشي كحرتين سيفتي maaha xarigna kuma xiranno waa dani ku baday waa nin lacag hawada laga gashay baan nahay marka qaarkood in badan bay dhacdaa in badan baa laan cuskanaysa laanta kula soo jabtaayo dhulka ku dhacaa okay hadda ka hor adigu weligaa ma ku sigatay ama soo dhacday anu dhowr jeer aan siibtay laakiin wax ma gaarin ilaahay waa ku badbaadiyay okay sidee baa u shaqaysan marka oo ma saacadii baa la beegareeyaa mise geedkii baa la ku beegareeyaa mise waxa la ku beegareeyaa inta xabo ah soo dejisan waxa weeye geedkan laba mar baa laga shaqeeyaa anagu Soomaalidu ka shaqeysaa dhowr jeer oo kale oo laga shaqeeyo mar la akeel la jiro buruun la yahay jira marka anagu shaqo kuma lihin labada jeer aan ka shaqeyno marna mirahana la kala dhimaa si miro ku waalad tila ay u soo xaraan sax marna waa la guraayo waa markay bislaadaan labada jeer baan ka shaqeyn labada jeer ba waa kontraad mar waxa lagu xisaabtamaa geedkan example halkan waa laba waxa lagu leeyahay marka hore waxa laga yaabaa inay 10 shan ahaayeen laba ka dhig baa lagu leeyahay iyo hal sida hoos oo kale waa hal marka waxa lagu xisaabtamaa cala geed geedkii baa lagu heshiinaya geeduna si u kala weyn yihiin weeye mid baa $2 noqonaya mid baa 10 noqonaya mid baa 5 noqonaya mid baa 4 noqonaya marka miraha la gorayo biin weyn baa la soo qaadaa biinka ayaa lacag ugu la heshiinaya dhulku yaala waa biin weyn ilaa waxaan ku qiyaasi karaa haaftan qiyaastii ama 400 kiilo qiyaastii oo kale weeye biinkaas ayaa lagu la heshiinaya $30 35 22 habda intuu yahay biinka marka geedka waxaad ka buuxinaysaa ilaa adigu waxaad ka buuxin kartaa 10 geed iyo 10 geed oo labada safka dhaxo kala maraysaa labadan geedkan hadda kan waa single waa dhinac kaliya biinkaas markaa lagu xisaabtamo marka miraha laftoodana waxay u baahan yihiin markasta kala socdo waxa jira miro damage gaaray iyaga waa goynaysaa marka kale oo la gurayana miraha damage-ka iyo wixii aan wali bislaan waad ka reebaysaa mar walba waxaad sameynaysaa macnaha waxa weeye taxadar wuxuu u baahan yahay badan waxaan la joogay ana Xasan Faarax Ali iyo cilmi xiiri sabriye waxaan joognaa Hastings xaafadda ay Soomaalidu degan tahay ana Nikao Street and Daahir oo ah ninka nageyn doona ana Gisbon iyo saaxiibkiis Cabdiwaxid waan la joognaa dhalinyaro badan oo Soomaaliya halkan degan ana dadku qudaarta iyo fruitka lacag ba ka bixin laakiin nimanka soo gurooyay fruitka Ingiriiska iyo Yurub iyo maxaan ku dhahaa Mareykanka iyo supermarketyada laga iibiyo waxa laga yaabaa inay ragani ay markii ugu horreysay gacantooda soo martay ama sanadii